nabadgelyo jinku ma haweeneyda iyo qofka ragga ah oo la garaaca ayuu uga baxa ma qofka oo biyo dusha loogu shubaya sida in loo qabeenayo oo kale mise yaa og kuwa furtay xarumahan cilaajku inay yihiin shakhsiyaad aqoon u leh hawsha ay qabanayaan maxaa ka jiro ragga cilaajiga ka shaqeeya iyagu inay sixiraan gabdhaha u taga midooda ilqabadka leh waxaan ii maqlaysaa jinnigaaga xagee lagaa soo adeejiyey sheeg warbixintan waxay bidhaaminaysaa tacadiga joogtada ah ee loogu haayo hooyooyinka iyo gabdhaheena Soomaaliyeed balse intayna u guda galin marka hore muuqaalka like saar si ay u gaarto dad badan sidoo kalena ay u fahmaan culum isku sheegan magaca diinta ku qaraabanaya waa gabar yar surka ayuu kaga hayaa ceeji shakhsigan tubada biyaha iyo qeylo dheer ayuu ku sheegayaa in jinniga uu ceersanayo waa naxdin iyo argagax in xaaladahan aan waxba la iska weydiinin bal ila arag dhacdadan urku taalada ku reebaysa dad badan oo Soomaaliyeed ma garaacaya soo doonatay ama daawo ilaa indhaha ay ka casaysa ayuu u la daba joogaa gabdhahan la geeyo xarumahan si loo daweeyo waxay kala kulmaan qarash tiro badan oo uga baxa iyo cudur hor leh oo ku dhaca waa suuq aan waxba dhaamin forex tusaale adiga oo daawo doon ayaad halkan galaysaa adiga oo xanuunsan jir ahaan iyo maskax ahaan ayaa halkan ka soo laabanaysaa shakhsiyan waxaan arkay dad la geeyo xarumahan oo qaarkood ay naafo ku noqdeen waa tacaddi weyn oo halkan ka jira sababtuna waa qofka oo daawo doontay laakiin la garaacayo beddelkeeda diintu arrintan maxay ka qabtaa culummada oo in badan aan ka hadlin arrintan ayaa hadda looga fadhiyaa in arrintan bulshada ay u badhaamiyaan waxa ay ka qabto diinta islaamka dhibku wuxuu ka jiraa dadka axshaabta ka shaqaynaya intooda badan ama in badanoo iyaga ka mid ah wax ma baranin cilmigana waa cilmi u baahan takhasus u baahan waay walaal adiga oo daawo raadinaya qofkaaga halaagin fadlan wax walba kitaabka qur-aanka kariimkay ku cad yihiin waalidow ka fiirsada ka taxadira meesha aad daawada ka raadinaysaan